Somtel ugu hagaan telefoon saxo maqal saafyo. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض داود الملك استاذ شوكتان waxaad ku soo dhawaataan markale iyo barnaamijka Smaal oo hadahan oo kale aad ka dhageysanaysaan radio Hargeysa kana socotaan oo ka daawanaysaan telefishinada Hon Cable TV qaranka waxa barnaamijkan ku casuunaadyo kala duwan kuwaasi oo markaas ka qayb galaya tartanka 22 su'aalood oo markaas dhan 3 milyan oo shilinka Soomaaliland waxa barnaamijkan dabcan aqoon korusan idinka idigu soo gudbinaa weydiin aan ugu talagalay inaad warcelin ku soo sameysaan weydiintaasi oo digana abaalmarin idigu siin doono wax sidoo kale aad ugu mahadnaqayaa khiyaarta stuudiyaha ila joogo oo barnaamijkan qayb ka tartamo kasta halkan yimaadana laba jeer waqtiyadooda kamid ah caawin doona meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Smaal Ramadan Kareem macmiil ka faa'iideysa abaalmarinta shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel ay ku diyaarisay bisha Ramadaanta ku shuba 25 senti oo kaliya kuna hadal 24 saacadood ama ku shuba 25 senti oo hel 200 oo MB oo internet ah maalintii haddaba macmiil ka faa'iideysa fursadan dahabiga ah oo kaga shuba adeega dahab adigoo garaacaya nambarka gaaban ee xidig 1 eber 1 4 gees ama booqo xarunta kuugu dhow ee shirkadda Somtel wixii faahfaahin garaac nambarka 333 kulanti wanaagsan mar kale waxaan u yeeri doonaa tartamaha kawaad ee barnaamijka ka qayb galaya tartamaha kawaad ee barnaamijka habeenkan caawa ka qayb gali doona waxa weeyaan Ahmed Abdiqaadir Abdullaahi Ahmed Allah saabiye Maxamed Abdiqaadir Abdullaahi Allah saabiye السلام عليكم محمد Abdiqaadir Abdullaahi وعليكم السلام عبد السلام كسو دو برنامجك Smaal وكله هلا محمد waxa wada tafaasiiliga saayna arday tahay halka aad degan tahay aniga daawada ashmeynta warbixin siin karto بسم الله الرحمن الرحيم waxaan diganahay magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Sheekh Madar hadan xaq waxbarashada sheego sanadkii u dambeeyay 2018 ayaan ka baxay kulliyadda maamulka iyo xisaabaadka ama accounting and finance waxa weeyaan ma sha Allah محمد Abdiqaadir in barnaamijkan daawatiyeen kale waan daawadaa kasoo qaybgalayaasha maalin kasta caawiyaashan waad ka mid ah barnaamijkan markaa sida kula muuqday markaad halkan joogtay dadka caawinaysay markaan ka timaadid waa horta isagoo midna ah markaa ka fadhido wixii ka jawaabi karaysa markaad kawaanka soo korto u baculaasiyada in baan dhaxlaysaa way bismillah dadkiina caawinayna way la joogaan waxa aad u xusnaataa laba jeer in dadweynuhu in caawin doona inagu adkaato laba jeerna min laba ka tuuri doono bismillah waan ku bilaabi doonaa su'aasha koobaad waxayna oranaysaa geedka geelu hadduu daaqo uu dhinto waa geedka geelu hadduu daaqo uu dhinto waa ba duqayga ta sogsogta ja jadeerka xa ciinka hadduu cuno u dhimanaya wallahi su'aasha haddaan isku dayo waa ciinka faxa oo ciinka hadduu cuno waa loo yaabaa marka geelu marka ciin daaqda lagu daaqda lagu yaabaa geedka geelu haddii uu daaqo uu ku dhinto waa xa oo ciinka jawaabta su'aasha saynu wadaagi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aasha labaad waxaynu oranaysaa Faransiiska Ingiriiska Talyaaniga iyo Spain waxay ka mid yihiin Faransiiska Ingiriiska Talyaaniga iyo Spain waxay ka mid yihiin ba wadamada barwaaqa sooranka ta wadamada Yurub ja wadamada Aasiya xa wadamada aanay cadceedu ka dhicin maxaad inaan laba ka tuurno hadda isku dhawaadaan afartan iyo mar dadweyne iyo laba jeer dadweyne aynu arsan iyo laba jeer inaan laba ka tuurno wadamada barwaaqa sooranka Yurub Aasiya Faransiiska Ingiriiska Talyaaniga iyo Spain waxay ka mid yihiin xa wadamada aanay cadceedu ka dhicin na laba ka tuurniyada dadweyne arsin dadweyne wadin Faransiisna meynaan tagin Ingiriisna meynaan Talyaaniga midna meynaan tagiso qaar ka yimi laga yaabaa inay la joogaano cadceedu ugu dhacday doona waxaan doonaynaa inaad nacaawisaan aniga iyo Maxamed waxa ay su'aashiidu oranaysaa Faransiiska Ingiriiska Talyaaniga iyo Spain waxa ay ka mid yihiin wadamada barwaaqa sooranka
wadamada Yurub wadamada Aasiya wadamada aan cadceedu ka dhicin imise qof ayaa la waxa weeye ba waxa weeyaan wadamada barwaaqa sooranka kamarada xagga durkida kamarada min badan ma banaan good sorry imise qof ayaa le waa ba waa wadamada barwaaqa sooranka imise qof ayaa le waa ta wadamada Yurub aad ugu fiirso imise qof ayaa le waa ja wadamada Aasiya imise qof ayaa le waa xa wadamada aanay cadceedu ka dhicin badi dadka socda qalbiyada xiriirana waa wadamada Yurub inta ba Yurub ku yaalaan barwaaqa sooranka iyo cadceedii dhacaysay iyo Aasiya xiriirana midna ma inaan ku raacno laakiin waxa soo dhin waa soo jeedin ama wada taagana mid ha taago go'aanka adiga iskale qaar kamid ah garanaya oo wadamada Yurub aan ku raacna deena qaldaana waa iska nasi deena saano ka simaansi Faransiiska Ingiriiska Talyaaniga iyo Spain waxay ka mid yihiin dadweynahan weydiinaanigii Maxamed dadweyne wax nagu yiraahdeen wadamada Yurub annaguna waan ku raacnay waan ku raacnay jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay su'aasha saddexaad waxay noqonaysaa sakaarada dhadig waxa la yiraahdaa ba dabataag ta tingey ja cawl ha ya sakaaro aragti sama sakaarada dhadig waa tingey waa ta oo tingey sakaaro markaa was aragtaan iyadoo meelaha haraysan laakiin lab iyo dhadig waxay meena kala garay sakaarun baa way inaan laba ka tuurnayo oo laba jeer hal mar doonayna inaan harsiin tingeeda ta oo tingey sakaarada dhadig waxa la yiraahdaa ta tingey go'aankaaga u dambeeya inaan laba ka tuurno iyo dadweyne inaan harsiin soorada maqash tingey ma wad maqash maan hubinaayo laba inaan ka tuurnaa inay ida tahay si dadweyne u joognaa bise wad haysa tingeeda waa sakaarada lab dhadig Soomaaliya lab iyo dhadig waa kala garanaa soo saa ninka ay dhadig waa ninka tingey sakaarada dhadig waxa la yiraahdaa ta oo tingey ta oo tingey ayaan wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay qalad ku tahay waa xa oo yaca marka hada lagu saacadiyo kulanti wanaagsan wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Soomaal waxaan u yeeri doonaa tartamaha labaad ee barnaamijka qayb galaya waxa weeyaan Saamiya Cabdi Colhaye saamiyaha loo saabiyo السلام عليكم سامية عبدي Colhaye السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كسو دو برنامج كسمال واحد وربحين قصة إن هذا ضيت هاي أنا دقنت أنا قد داودش من هذا وربحين السنة بسم الله الرحمن الرحيم مقاعي وسامي عبدي وحن دقن مقالات رقصة حافظة أكتوبر كشقية وسائل يرد عيارها وحنا أرضي اللي قلتها ما حد كشقة لها الدولة ده تفكر كأربن مانجمنت ما شاء الله وسارد عيارين بدين تلاقي شوكتي سقاسن كوب فربنا ما سواق قبتين أو حفلة فربنا بقبتين أنت أبغى شوكتي وسارد ما شاء الله إن لأن يعرف ربنا بهالكن سامية يمادو سؤالها حبلها وبدنا بعد الدونانو سؤالها سيد وارك تورط برنامج سمر كمان aad bay u fiican barnaamijka sagaalkii sano socdayna waan daawanay maasha Allah aadna waxaan faraxsanay maanta anigoo maxay heday qofkii ahaa role modelkayga aan ku daynay saxafiga haya Cabdirsaaqan maanta hor fadhiyo aad baan u fiican su'aalahan ما سيد ولا أدبكم ما بيني إن شاء الله أدبا ما سنتها إن شاء الله سامية
أحد أدو حسنا طلبة شير ددوينها هنا عاون دون إن شاء الله لبا شيرنا من لبا سؤال كتوري دون هذه الله يرحمه وهالكاغي عبد الرزاق واسك كاميرادي هاوشا ودتay دان إلا وركادا inoo hayni هذا كان حسنا أنا قبل هذا على سؤال يدري إن سامية بسم الله سؤال شكواد وحين ورنسا قفك مسلم كاهي حوله سوحة وسكأ بحنايا بقول كيبا قفك مسلم كاهي حوله سوحة سكأ بحنايا بقول كيبا بألبا تا لبا يبد شا صدح ح صدح يبد بسم الله taas su'aasha isku dayo talaba aan ka shakisanahay biidiyad bacda iyo taada oo ah laba amba difaar bay tooga marka markasta tilay qofka xoliisa nus ha ka bixiyo oo difaar bay ka bixiyo qaabsan soo hubiyo laba iga saar laba kamid ah ayaan su'aalahaasi ka saari doonaa oo cadda markaan laba ka shakisanahay saaray ta laba yabad qofka muslimka ah xoolihiisa waxa uu sako u bixinayaa boqolkiiba ta laba yabad jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay saamiya su'aasha labaad waxay noqonaysaa koobka kubadda cagta ee adduunka wadanka ugu guusha badani waa koobka kubadda cagta ee adduunka wadanka ugu guusha badani waa ba Argentina ta Faransiiska ja Brazil ha Jarmalka بسم الله taas su'aasha isku dayo inkastoo Jarmalka iyo Brazil isku hayo laakiin si Brazil جاء برازيل عياري دواش وساردني بو عياريات بينو فهمنا سوا انا نقول كوب بدن بان قبن كوبك كبدا عقده ادونك ودنك ugu guusha badani waa ja oo Brazil jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay saamiya saddex ma soo gaarnay su'aasha saddexaad waxay noqonaysaa su'aasha saddexaad inamadii uu dhalay nabi Ibrahim alayhi salaam waxay ahaayeen inamadii uu dhalay nabi Ibrahim alayhi salaam waxay ahaayeen ba Ismaaciil iyo Isxaaq ta Isxaaq iyo Yacquub ja Yoonis iyo Ayuub ha Ismaaciil iyo Yuusuf بسم الله su'aasha isku dayo Ismaaciil Isxaaq Yacquub Ismaaciil iyo Isxaaq Ismaaciil iyo Isxaaq ina laba ka turanayna seen duwinina arsi walka turway baad iyo taada ka shaqsan marka wax weeyaan nabi Ibrahim Isxaaq wuxuu dhalay iyo horta Isxaaq wuxuu dhalay Yacquub waa ka Yuusuf dhalay marka Ismaaciil inuu isaga aabihii haayo isagina kiisa haban kala galay marka laba ka Isxaaq isaga waan hubnaa Soomaa Ismaaciilna inuu isaga aabihii haayo inuu ina kinabigu dhalay marka sababta waxa ugu dhow Ismaaciil Isxaaq iyo Yacquub Isxaaq iyo Yacquub inay si dhaleen saynay walaalyihiin nabi Ibrahim inuu dhalay Ismaaciil iyo Isxaaq iyo inuu Ismaaciil isaga aabihii ahaa isagu dhalay Isxaaq iyo Yacquub ayaan ka shaqsanay marka laba ka tursan laba kamid ah ayaan su'aalahaasi ka tuuri doonaa saan saga hubin marka wax weeyaan Ismaaciil iyo Isxaaq nabi Ibrahim alayhi salaam carruurtiisi waxay kala ahaayeen ama inamadu dhalay Ismaaciil iyo Isxaaq jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay marka Isxaaq baa Yacquub sida Yacquub Yuusuf sida saxaabad afar su'aasha afraad waxay noqonaysaa waxbarashada madaniga ah ee arrigeena waxbarashada maadiga ah ee arrigeena ninkii bilaabay wuxuu ahaa waxbarashada maadiga ah ee arrigeena ninkii bilaabay waxa uu ahaa ba Maxamed Shiragaab ta Maxamuud Axmed Cali ja Yuusuf Xaaji Aadan ha Gaani inta waxaan ragii waxbarashada ka qayb qaataa laana xariisto dhamaantood بسم الله ده su'aasha isku day markasta xidhan Maxamed Axmed Cali waa bi waxbarashada tan Maxamed Axmed Cali baan ku adkaysan waxbarashada maadiga ah ee arrigeena ninkii bilaabay waxa uu ahaa ta Maxamuud Axmed Cali jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay asiya shamman soo gaanay su'aasha shanaad waxay noqonaysaa dalalka la isku yiraahdo Scandinavian-ku waa dalalka la isku yiraahdo Scandinavian-ku waa ba saddex dal ta afar dal ja shan dal ha lix dal بسم الله نحتاج يو شن دل بقى قرشك سنة تدوينها ما يودين تدوينها يودين إن شاء الله قال Scandinavia كي منها كده حلو وقفير صدا شنبان مرنا وكلا بر وأمريكا كوادن دي بهانو هل قفنا هذا عديه بتاعون جعنته وتاكتو
inta kalena aad u hubiyaan su-aashu waxay doonaysaa dalalka la isku yiraahday Scandinavian-ku waa 3 dal 4 dal 5 dal 6 dal imise qof ayaa waa ba waxa weeyaan 3 dal imise qof ayaa waa ta waxa weeyaan 4 dal imise qof ayaa waa ja oo waa 5 dal imise qof ayaa waa 6 oo waa 6 dal asoo noqono asiya badi dadkan aad isugu wada dhow yihiin بدي واقع مسلم ورتين تقرنين بيد أفتح سامية قلدنا لكن إلى شون قف حين نقول هذين نقف وصدح ضل شن وحين نقول هذين وأفر ضل أفر قفنا حين نقول هو شن ضل مركب وسكود الدولوي شنطة مسقف عيد شنطة أفر قفوا كلية صدحنا إلى لحقف باين نقول صدحنا أنت بدن بين قرآن أنت بدن ما قرآن دينا قلدان نوا إما هسين هدينا صحانا وكسي ما هسين dalalka la isku yiraahday Scandinavian-ka dadweynaha ayaan weydiinay dadweynuhuna badi waa naga aamuseen inta garanayeen bay dhaaftay ba oo 4 ba oo 3 dala ayay nagu yiraahdeen ilaa 7 qof aniga iyo saamiina waan ku raacnay jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay ama si lix ma soo gaarnay su'aasha lixaad waxay noqonaysaa nooca fardaha Soomaalida ugu wanaagsan waxa loo yaqaan nooca fardaha Soomaalida ugu wanaagsan waxa loo yaqaan ba sunaari ta xamar ja baxdow ha doob yar sunaari ba oo sunaari hal mar doonay inaan arsaansan akoo hubta wad maqash nooca fardaha Soomaalida ugu wanaagsan waxa loo yaqaanaa ba sunaari jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay su'aasha toddobaad ayaan soo gaarnay saamiya su'aasha toddobaad waxay noqonaysaa boqortooyadii Afrika ka talin jirtay ee muslimka ahayd waxay ahayd boqortooyadii Afrika ka talin jirtay ee muslimka ahayd waxay ahayd ba Andalus ta Loseto ja Songhai ha Armenia Andalus ba Andalus boqortooyadii Afrika ka talin jirtay inuu yiraahdo ee muslimka ahayd marka Afrika ay mana boqortooyo ka ahayd waxay ahayd Afrika Afrika Songhai Norwegian Asia Armenia naga ta Loseto boqortooyadii Afrika ka talin jirtay ee muslimka ahayd waxay ahayd ta oo Loseto labayna ka tunay anaga dhamaad sama dadweynaha hal mar aynu arsalno way ka hub meel xasaasiyad marnaa iska aad u toojisay doonka ugu dambeeyay Songhai Armenia labaduba ma ahayn Afrikiintan ka Andalusna wada dawladihii muslimkiintiyodan marka taaban anigu malayna laakiin dadweynaha nooga ka suubina waagaag mar kale ayaan idigu soo noqonay toddoba ayaan marnaa marka labaadna waxaan jecelahay inaad nacaawisaan maskaxda aad u tuujiya iyarna haadaan cid garanaysa gacanta taagto boqortooyadii Afrika ka talin jirtay ee muslimka ahayd waxay ahayd Andalus Loseto Songhai iyo Armenia imise qof ayaa la waa ba waxa weeyaan Andalus imise qof ayaa la waa ta Loseto imise qof ayaa la waa ja Songhai aad ugu fiirso imise qof ayaa la waa ja Armenia laba qof waxaan ugu yiraahdaa waa Armenia badi laakiin ila 30 qof dad kor u dhaafay waxaan ugu yiraahdaa waa ja waxa weeyaan Songhai dadka badan been Quraan deena saxaana waa boqortooyadii Afrika ka talin jirtay ee muslimka ahayd waxa ay ahayd ja oo Songhai been ugu yiraahdaan badi dadweynaha ayaan weydiinay stuudiyaha la jooga aniga iyo Saamiya Cabdi waan ku raacnaa sama waan ku raacnay jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay aad ma si sideed baan soo gaarnay su'aasha sideedaad waxay noqonaysaa dalka Vietnam ciidamadii Mareykanka ee ugu dambeeyay waxa ay ka baxeen dalka Vietnam ciidamadii Mareykanka ee ugu dambeeyay waxa ay ka baxeen
ba sanadii 1970kii ta sanadii 1975kii ja sanadii 1980kii xa sanadii 1985kii بسم الله شن صلاتك شن ستيتك كيف أنا سكوها يا لكن شن صلاتك waxaad ka sheegsantay 85 iyo 85 markaato waa 85 dalka Vietnam ciidamadii Mareykanka ugu dambeeyay waxa ay ka baxeen ta oo ah 1975 من الآن حلقة لكن تاريخ طبعاً أنا تا أو كن سجال بقولشن يتطبعتن كي جوابت السؤال شاسعين وذيك دونا جوابت السؤال شنا سدا سعي صح كتاي سجال بان سوغان سامية سؤال سجالات وحين ورنسا مدحوينه وجوه الرئي وطن كباكستان وحوها مدحوينه وجوه الرئي وطن كباكستان وحوها با أحمد قمري تا وردي بن علي شا عبد الناصر عمار ح محمد إقبال يعني أحمد قمري بقى أحمد قمري كان محمد إقبالي أحمد قمري كان سكوها يا لكن دول مركب جوه الرئيس سا انقلاب كايو قاضين كل سجال بقولي تضبيع فرطن كي ونينكي محمد دولنجري قبصدي كان محمد كلنا نكحد من إني أحمد قمري وها markay uu inqilaabiyay qabsatay maxamed markii ugu horeysay oo kala go'een Hindiya 1974kii intii ugu horeeyay markaas isaguna kula jiray siyaasadda Hindiya wuxuu ahaa nin oran jiray maxamed marka in ayadiisa ma garanayo ka maxay heedeen haddii markaas ahayd marka waqti marka la yimid Pakistan samaysatay inta madaxweyne la sameeyay markaas soo saariin uu ahaa ka Ahmed Qamriga Soomaaliya madaxweynihii ugu horeeyay ee wadanka Pakistan waxa uu ahaa ba Ahmed Qamari aad bis ugu dhowdooyin taariikhda inta badan wada haysaa laakiin magaca isku dhowdoo go'aankaaga u dambeeya maxamed iqbaal madaxweynihii ugu horeeyay ee wadanka Pakistan waxa uu ahaa oo ah markaasi maxamed iqbaal sagaal baan joognaa xabadan hadaan garan horta okay damal baan markaa joognaa iyadoo lacagtun baa inoo harsan dhimana shay doonoo hayna lacagtu muhiim ma aha lacagtu ma aqoonta ugu muhiimsan inaad nagala qayb gashaana sharaf weyn bay noo tahay أنا أشكر لك سوق أنا ومسكان توجد معلومات فربنا نرجع كافيين مدحوينه وجوه الرئي وطن كباكستان وحوها سامية حق محمد إقبال حق محمد إقبال أين وذيك دونا جوابت السؤال شو نصير سايي صح كتاي سامية طبعا ما سوق أنا سؤال شن طبنات وأفر بقول وكن أشرين مهمة لكن تمنى سوق أنه أي مهمة دوينة رواية الطلاء يتلابه وحعوريين رواية الطلاء يتلابه وحعوريي أبوان رواية الطلاء يتلابه وحعوريي أبوان ب أبوان ديك تا أبوان صوران شا أبوان محمد آذن دعر ح يوسف شاعر بسم الله هذا سؤال أسكت أي جوابتي إن كستن أبوان صورانية أبوان دعر كشك سنة هاي لكن أبوان محمد آذن دعر بنتي سنين أبوان محمد آذن دعر سؤال وأفر بقول أو كن أشيك سمعنا سامية دوينة نقدر ماذا لبكة تورانا نقدر ماذا مسكح هذا توج رواية الطلاقية طلابة وحعوريي أبوان شاء محمد آذن دعر قوانك قدم بي صوران تا أو أبوان صوران رواية الطلاقية طلابة وحعوريي أبوان تا صوران قوانك قدم بي هي أبوان ديك رواية الطلاقية طلابة وحعوريي أبوان با ديك قوانك قدم بي بسم الله حسنا اوكي دعر كيغاس كوديسنا markii ugu horeysay جاء أبوان دعرة رواية طلاقية طلابة وحعوريي أبوان من أن دورة رواية اسمها إنه ده دوبان تاينا وين ما وين جوريس رواية طلاقية طلابة وحعوريي أبوان سامية عبد العلهية جوانك قدام بيت وقت من هرين يا وحن مرنا طبعا واي أبوان ديك
با أبوان ديغا رواية تلا تلابو وحا عريي أبوان با ديغ أفر بقولو كوي درساقو لعagta ma ahay iyadu muhiim أغوتا مهمة إنا سوقال ها رواية تلا تلابو وحا عريي أبوان عزك خلقا سامية ديق أبوان ديغ محمد حبي ياسين ديغ وي مركا رواية تلا تلابو وحا عريي أبوان ديغ غلط أما صح صح أما غلط غلط أما صح أما غلط رواية تلا تلابو وحا عريي سؤال شنو سؤال تمناد وافر بقولو كن والكن ما تنسو سعني سامي عتك فرقا قوانك قدم بسم الله الرحمن الرحيم أبوان ديك رواية تلو تلابو وحا عريي أبوان ديك جوابت سؤاشنا سلاسي جوابت سؤاشنا سلاسي صح قطاي جميلة حنبلي أدنى سؤال حنبليني يا سامية عبدي عل هي آدي أدبا ملك كوها برينا برنامج كنا نجلس وقيب الشيء ترتن كوكو ليس تبى لبضبا أدبا كوكو هالعلمنا هذا اللي قص عبيو كتناش بوستاي كم نقطي سامية البرنامج كسي ودنا السديين كلنا أنا أدبا فرحسين البرنامج كسو قيب كلنا ليش تكمل نقول قلنا عبد الساق صور فلستصنت لنا أدبا ومحصنت هاي الحمد لله الشكر يدعي هو يوم أنا ما أنت كوكو ليستي الحمد لله ولا ويكتب البرنامج كان سيتك يا مركب ورمية أو سي شكت الحمد لله الحمد لله الشكر كادد ولا الله هي صوم بتشوجا هذا يجا نوض بحدونا يلا ساقا سبتو جدا وضقاتي وين ولا كان برسيسة أدبا ما ست هذا اللي قص عبيو سامي هذا سي برنامج شغال شغالين ده أدي أدبا ما ست هاي ما ست هذا اللي قص عبيو ما ست سامي شغال رمضان كريم macmiil ka faa'iidaysa abaalmarinta shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel ay ku diyaarisay bisha Ramadaanta ku shuba 25 senti oo kaliya kuna hadal 24 saacadood ama ku shuba 25 senti oo hel 200 oo MB oo internet ah maalintii haddaba macmiil ka faa'iidaysa fursadan dahabiga ah oo kaga shuba adeega dahab adigoo garaacaya nambarka gaaban ee xidig 1 eber 1 4 gees ama booqo xarunta kuugu dhow ee shirkadda Samtel wixii faahfaahin garaac nambarka 333 waagaag kulanti wanaagsan daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka oo aad kala socotaan oo ka dhageysanaysaan raadiyo Hargeysa telefishinka qaranka iyo Hon Cable TV barnaamijka Soomaaliya ku guda jirnaa waxaan yeeli doonaa tartamaha saddexaad ee barnaamijka waxa weeyaan Shucayb Aadan Maxamed Shucayb Allah saabiyo السلام عليكم شعيب آذن محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شعيب وش هذا ولا برنامج كسمال واحد وربحين قصة إن
arday tahay halka degan taaniga daawadaasha inta bixina seegarta waxaan ahay arday baan hay waxaan deganahay xaafadda xidigta magaalada Hargeysa ma sha Allah barnaamijkan shacab inaad hore u daawateen kana cabdirasaaq runtii barnaamijkan waxaan daawanayay 6 sano u dambeysay si fiican baan daawanay inta baan ka qayb gashaa jecel maanta adiga lagu daawanaya marka maanta nasiib shucayb baa fadhiya la oranaya meelaha ugu badan ka daawan jirtay halkee ahayd kolay 5 sano u dambeeyay waxa ka daawanay 5 sano horreeyay waxa ka daawanay magaalada Burco inkastoo sanadkii u dambeeyay aan ka daawanay marka kada wax ka barataa way shucayb waxaad u xasuunataa laba jeer in dadweynuhu caawin doonaan laba jeerna milamaan ka tuuri doona su'aalaadkaada bismillaah waan bilaabi doonaa su'aasha koobaad waxayna odhanaysaa biiqa waxa dhasha ba sakaarada ta deerada ja cawsha xa dabataagta biiq waad maqashtaa biiqa aan su'aashaas ku dayno biiqa waa dhasha sakaarada weeyaan waa ba oo dhasha sakaarada inaan laba ka tuuriyo dadweynuhu arsan insha Allah dib u dhiganaa biiqa waxa dhasha ba oo sakaarada jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aasha labaad waxayna odhanaysaa xayawaanka geedo goynta caanka ku ah ee haddii uu nabar ku dhaco markiiba geedka isku daweeyaa waa xayawaanka geedo goynta ku caana ee haddii nabar ku dhaco markiiba geedka isku daweeyaa waa ba libaaxa ta maroodiga ja geriga xa waraabaha cabdirasaaq jawaabta waxaan filayaa inay tahay xa oo waraabaha ah xagaa fanaysaga xa oo waraabaha markaa dadku goyn yaqaan dadkana uu ku daweeyaa isagoo isku daweeyaa xayawaanka geeda goynta dadku ku daweeyaa dadku ku daweeyaa wax jira dad waraabe hadal la dhahdo markaa uu soo gooyo dadkaas uu soo gooyo oo iyaguna wax ku sii daweeyaa waraabe ka qaataa markaa iyagu xayawaanka geeda goynta ku caana ee haddii nabar ku dhaco markiiba geedka isku daweeyaa waa xa oo waraabaha jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aasha saddexaad waxayna odhanaysaa camalkii nebigu naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ahaatee inugula dardaarmay ee markii naftu ka sii baxaysay uu afka ku hayay waxa uu ahaa camalkii nebigu sala allahu calayhi wasalam inugula dardaarmay ee markii naftu ka sii baxaysay afka uu ku hayay waxa uu ahaa ba xajka ta soonka ja sakada xa salaada nabiga sallallahu alayhi wasallam inaan laba ka tuurno laba jeera iyo dadweynina wayna harsay xa oo salaada camalkii uu nebigu naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ahaatee inugula dardaarmay ee markii naftu ay ka sii baxaysay oo afka ku hayay waxa uu ahaa xa oo salaada xa oo salaada ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay الصلاة وما ملكت أيمانكم سؤاشا أفراد waxay noqonaysaa magaca dhudi waxa loo bixiyaa ba gabadh baariina ta gabadha cas ja gabadha gaaban xa gabadha dheer dhudi islaami hore hadii loo bixi jiray sawir dhudi la yiraahdo maad arag wili sawa imka hableheena dambe magacyadii dambeba magacyadii hore dhaqankeena dhudi iyo xalwo iyo jirow iyo magacyadii si dabarguureen dhudi waa gabadha dheer oo gabadha dheer ma weydiin habla badan ba fadhiyo أنا هو أنا كذا حبيبي ما دعمنا سيناس كلا يعني قالين بدي قوان كاغو دنبيا قبل دير وحا مقع عدودي وحا لو بحيا حق قبل دير جوابت السؤال شنو سيداسي أيي صح كتاي
شاب ما سوقان سؤال شناد وحين ورنسا معدنتا شركة بني آدم كوجو بدنوا معدنتا شركة بني آدم كوجو بدنوا بيها تا فيرم شا ايرون ح كالشيام شركة بني آدمك بس بقول كيف كويس تدعتي ما بيها لكن معدن مرة هذا حيمن سا كالشيم تين وهاي كالشيم تلفين دي بيرسمه ايه كالشيم ح كالشيام لبشر لبكتورني لبشر وينو نارسي دوبتا معدنتا شركة بني آدم كوجو بدني واحد أو كالشياما جوابت السؤال شاسين وذيك دونا جوابت السؤال شو نصير سايي صح كتاي يا شعيب لحمان سوقان السؤال اللي حاد وحين ورنسا قنبها أدون كوجو بدن ودن كصوص عراوا قنبها أدون كوجو بدن ودن كصوص عراوا ب فلبين تا سوريا تا مصر ح هنديا قنبها وتقرن صح بها كستين دل هنا أنا كارت مغلي أنا سوشيال ميديا يتفيدني يعني وهندية وين ح وهندية قنبها أدون كوجو بدن ودن كصوص عراوا ح وهنديا إن على بكرة تورنيو دلوينين وينارسين قار قنبها عني إن على قد حلال لقيها مو ودك هنا كم بدنا سان وجه كلي كائن كون عندك هاليوم ملين ماي قار بدن هندية كسر عني بعد إن ورنا كره حقيقين كره أنا ويقول بدن يا مو لبكتر لبكة ميدا أيام سؤال هسه كتوري دونا هندية اللودي الماي قنبها أدون كوجو بدن ودن كصوص عراوا ب أو فلبينا يح أو هندية ح أو هندية قنبها أدون كوجو بدن ودن كصوص عراوا ح أو هندية كواد كسنسا ح أو هندية أين وذيك دونا جوابت السؤال شنا سيدا سيايي قالت كوتا هاي فلبين هندية كبدن هندية بدن تهل أدري دي نقول بدن صار هذا لو صعب ميلو نسمع سوق عني وأجا ولي برنامج كسمال أيام كودا شرنا وحنو يرد دونا ترتمها أفراد برنامج كترتمها أفراد برنامج وحويا نصر أحمد إسماعيل نصر الله صعبية نصر الله صعبية السلام عليكم نصر أحمد إسماعيل عليكم السلام ورحمة نصر ولا الكسر دو برنامج كسمالي شركة إسكاسين تسمت وندوي ولا العبد نصر واحد وربحي ولا قصة أنا رديتها إن تقول شوكتو على كده تانية ده شيء تاد معلومات نسيكر ما شاء الله عبد الرحمن عبد الرزاق وأنا سنة كبر رديت لكن ما حنهيك شو ما شاء الله برنامج كان أنا دعوتي كان نصر هذا أنا دعوة برنامج والله صوتها نصر waxaad u xasuunataa laba jeer inay dadweynuhu caawin doonaan hadii nagu adkaato oo dad badan baca wasiinta joogteen laba jeerna mid laba ka toori doono bismillaah su'aasha koobaad waxayna oranaysaa wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa furtay xukuumadii wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa furtay xukuumadii uu hogaaminayay ba Axmed Siraanyo ta Daahir Riyaale ja Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ha Muuse Biixi horta musabixi malaha ma joogo bee markii wada hadallada ma joogin ha laakiin waxa noqonaysaa Axmed Siraanyo ina laba ka turiyay inay noo arsanay wadubta laakiin wadu markii wada hadallada bilaabay wallahi moogay laakiin kulay ba oo Axmed Siraanyo in wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay su'aasha labaad waxayna oranaysaa nabiga naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa aatee intaan la oofsan wuxuu ku dardaarmay xukunka muuminiinta inuu qabto nabiga naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa aatee intaan la oofsan waxa uu ku dardaarmay xukunka muuminiinta inuu qabto ba Abi Bakr ta Umar bin Khattab ja Ali bin Abi Talib ha midna wata oo Umar bin Khattab
ta oo cumar bin khadaaba nebigu naxariis iyo nabadgelyaba ku kisaatay intaan la oofsan waxa uu ku dardaarmay xukunka muuminiinta inuu qabto ina laba ka tuurniyad dadweyniina waa inu arsayn كلي أبو بكر يا عمر بيسودو لكن 50-50 قريب laba ka mida ayaan su-aalahaasi ka tuuri doonaa waxaa isku saaray ta oo cumar bin khadaaba iyo xa oo ah midna عمر بن الخطاب ta oo cumar bin khadaaba marka cumar bin khadaab hadduuba kusii dardaarmi lahaa nebigu sala allahu alay wasalam dee muxuu noqon lahaa usamaa ninkii ku xigay nebiga dabadii marka cumar miyuu ku xigay tiruu nebiga ما يبي لا تاي وإن شاء الله حقه من النبي xa oo midnaba nebigu naxariis iyo nabadgelya korkiisa aatee waxa uu ku dardaarmay xukunka muuminiinta inuu qabto xa oo midna jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay nabi sal abubakar sidiiq uma ummadda inuu tukiyo oo salaada intii nabiga laakiin intii dambe xukunka iyagaa markii dambe la baayacada la galayo su-aasha saddexaad waxayna odhanaysaa dadka ribada cuna astaanta qiyaamaha lagu garanayaa waa dadka ribada cuna astaanta qiyaamaha lagu garanayaa waa ba in ay bararaan ta in ay madoobaadaan ja in ay qayliyaan xa in ay kolba dhinac u dhacdhacaan وتا أو إني مذبذان ta oo ah inay madoobaadaan dadka ribada cuna astaanta qiyaamaha lagu garanayaa waa ta in ay madoobaadaan ilaa laba ka tuurna hal mar baa inoo harsan dadweynina waa inoo harsan yihiin nasra dadweynaha muu tagnaa qaar badanoo كل كم ترى ضد الربا عنايا qaar cuni kuma jiraan laakiin qaar dhigtay oo ribada tafaasiisheeda garanaya ayaa inala joogaya qaar madrasadaaba laga yaaba inay arday u badan yihiin أوكي تبينه يقول بسؤال dadweynaha waa hagaag inaad nacaawisaan ayaan doonayaa aniga iyo nasra maskaxda aad u tuujiya waxaanu maraynaa 3 waa markii kowaad aan idii baahano ciddii hubtaa un gacantaa u taagto su-aashuna waxay doonaysaa dadka ribada cuna astaanta qiyaamaha lagu garanayaa waa inay bararaan in ay madoobaadaan in ay qayliyaan iyo inay kolba dhinac u dhacdhacaan imise qof ayaa le waa ba oo waxa weeyaan in ay bararaan imise qof ayaa le waa ta in ay madoobaadaan imise qof ayaa le waa ja in ay qayliyaan imise qof ayaa le waa xa in ay kolba dhinac u dhacdhacaan aan isu soo noqono laba tiro islaag ayaa waxay nagu yidhaahdeen waa in ay bararaan iyo inay kolba dhinac u dhacdhacaan إن شاء الله وحكون راعنا شاء وين برا ja oo ba oo ah inay bararaan marka ilaa dhowr iyo labaatan qof waxay nagu yidhahdeen waa inay bararaan dhowr iyo labaatan kalena waxay nagu yidhahdeen inay kolba dhinac u dhacdhacaan waa isku dhow yihiin badi waa inaga aamusan inta garanayaan bay dhaaftay marka laba ma kasii tuurnaa si midkoodu soo hadho إن شاء الله وحكون السنة إن شاء الله بعد كات السنة ba oo ah in ay bararaan dadka ribada cuna astaanta qiyaamaha lagu garanayaa waa ba in ay bararaan dadweynaha ayaan weydiinay dadweynaha intaa in laeg bay nagu yidhaaheen hadday intani qalad noqoto inay dhacdhacaan ay sax noqotaba waxaan ku nidhahnaa markaan u tagnaa maxaad noo raaci wada hablo u badnaayeenba kuwii nagula ha dhacdhacaan سماها إفن كل واسكع في صوت أنت قرني بشيء لكن إن شاء الله حد يكون يقدر حدا ku eegi doona dadka ribada cuna astaanta qiyaamaha lagu gartaa waxa weeyaan xa inay kolba dhinac u dhacdhacaan haddii inay baraan sax noqoto hadda dadkaan ku noqonay nagu yidhaahdaan maxaad nagu raaci weydeen كل عبد الرزاق والله ما كلمة دود يسكتوا سام لكن إن شاء الله حد يرجعني xaadaan ku raacana dadka ribada cuna astaanta qiyaamaha lagu gartaa waa dadweynaha ayaan weydiinay dadweynuhu cod isku mid ay nagu yidhaahdeen maadaama dee ay
nasri gudoomiyaha golaha tahay waxay raacday qolada xaada markaasi ah inay kolba dhinac u dhacdhacaan waan raacnay waan raacnay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay afar baan soo gaarnay su-aasha afraad waxayna odhanaysaa dalka islaamka ugu badani waa dalka islaamka ugu badan dadka ku nooli waa dalka islaamka ugu dadka badani waa dalka islaamka ugu dadka badani waa ba hindiya ta indonesia ja sacuudiga xa masar dalka ugu muslimka badan la inuu weydiiyo hal mar inaan laba ka tuurnaaba inoo harsan insha allah anjo nasra waqti gura naga dhacay go-aan ka gaar okay waxaan ku eegaynaa ta oo indonesia ta oo indonesia dalka islaamka dadka ugu badani waa ta oo indonesia inaan laba ka tuurnaa inoo harsanaa soma ni ta oo indonesia eegna ta oo indonesia aynu wada eegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay shan baan soo gaarnay su-aal shanaad waxayna odhanaysaa ugaadha xidigiska laga eegto waa ugaadha xidigiska laga eegto waa ba garanuugta ta deerada ja sakaarada xa cawsha nasra go-aan ka gaar insha allah ba oo garanuugta ba oo garanuugta ugaadha xidigiska laga eegto waa ba oo garanuugta inaan laba ka tuurno hal mid baa mar baa inoo harsadaa miya toban soo hubtaa كل عبد الرزاق ما المقال لكن واسكا nasiibina garanuugta markaa eeg ugaadha xidigiska laga eegto waa ba oo garanuugta go-aankaaga u dambeeya ba oo garanuugta ugaadha xidigiska laga eegto waa ba oo garanuugta ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay ku tahay waa cawshayna ku yidhaahdeen meel wanaagsan baan soo gaarnay hadal lagu sacabiyo nasra axmed waagaag daawadayaal mar kale ayaan kulanti wanaagsan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan barnaamijkan aad ka daawanaysaan oo markaasi guryihiina xafiisyadiina goobo shaqo oo markaasi aad nagala socotaan si aan idiin soo weydiino weydiinta aad warcelinta kusoo samayn doontaan inta aynaan u gudbin weydiinta aad warcelinta kusoo samayn doontaan habeenkan caawa waxaynu eegi doonaa weydiintii lagu soo guulaystay ee abaalmarinteeda aan bixin doono weydiinta warcelinta lagu soo sameeyey ee ahayd geela tirada yar waxa la yidhaahdaa tuldo fadhi horweyn iyo kadin sidii barnaamijkii hore aan tilmaanay waxa tuldo waxa ka soo jawaabay dadweyne aad u tiro badan waxaase yeeshay markii seefarku uu kala xulay nasiib u helay inuu markaasi su-aashaasi ku guulaysto ninka lambarkiisu uu yahay 944 marka laan ku celiyo 944 waxa weeyaan magaciisuna Axmed Saciid Xasan Axmed Saciid waan la hadalnay dabcan shirkaduna way la hadashay waxa uu sheegay inuu joogo magaalada Ceergaabo ayaynu markaasi ku guddoonsiin doonaa abaalmarinta hadiiba kasmaal uu tago lacala hadii kalena xafiiska ugu dhaweey markaasi shirkadda isgaarsiintu ay ku leedahay ba abaalmarintiisa uu ka qaadan doonaa waxaad u diyaar garowdaan hadda weydiinta aad warcelinta ku soo samayn doontaan habeenkan caawa weydiinta aan warcelinta ku soo samayn doonno waxayna odhanaysaa uurku jirta dadka xubinta ugu weyni waa uurku jirta dadka xubinta ugu weyni waa ba xiidmaha ta beerka ja midhicirka xa ganaca mar kale aan ku celiyo uurku jirta dadka xubinta ugu weyni waa ba xiidmaha ta beerka ja midhicirka xa ganaca waxa aad warcelinta saxda ku soo diri doontaan ba ta ja ku sax ku yahay idinku oo markaasi xarafka gaaban ku soo diri doona lambarka gaaban isna 822 ayaad ku soo diri doontaan waxa lacago lambarkaasi dabcan idiga goosan doona nama jiro waa bilaash ayuu ahaan doona waxa markaasi aan rajeynaya marka seefarku kala xulo inaan halkan abaalmarinta ku guddoonsiin doono ama gobolada meel kasta ka daawanayo dabcan aan halkaasi abaalmarintiisa ku heli doono intaan barnaamijka xigay sugu iman doono meel kasta aad joogtaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa akhyaarta magacyadu xagga dambe ka soo bixi doonaan iyo meel kastoo aad nagala socotaan sida baraha bulshada iyo telefishinada Home Cable TV qaranka iyo radio Hargeysa barnaamijka aad kala socotaan
رمضان كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تليفون صحو مقال صافيو أسألوك لهين صمتك ugu hagaag تليفون صحو مقال صافيو أسألوك لهين صمتك ramadaan kariim macmiil ka faa'iidaysa abaalmarinta shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel ay ku diyaarisay bisha Ramadaanta ku shuba 25 senti oo kaliya kuna hadal 24 saacadood ama ku shuba 25 senti oo hel 200 oo MB oo internet ah maalintii haddaba macmiil ka faa'iidaysa fursadan dahabiga ah oo kaga shuba adeega iidahab adigoo garaacaya nambarka gaaban ee xidig 1 eber 1 4 gees ama booqo xarunta kuugu dhow ee shirkadda Samtel wixii faahfaahin garaac nambarka 333